Assalaamu calaykum. Go'aanso waxaad rabto nolosha. Ma garanayo waxaan nolosha rabo. Ma garanayo waxaan ku sameeyo noloshayda. Ma garanayo waxaan doonayo inaan noqdo. Mana garanayo hadafyo aan dejisto nolosha. Hadalladani marar badan maskaxdaada ma ku soo dhaceen oo ma isweydiisay? Haddii aad horay isku weydiisay, keligaaga ma aha, waxaa jira kumanaan qof oo aan garanaynin waxay noloshu ka rabaan. Sababtuna waxay tahay waxay ku dhawaaqsan yihiin oo aynaysan si fiican u fahmin waxay baahiyahooga dhabti ah yihiin. Sideed ku ogaan kartaa waxa aad dhab ahaan u rabto nolosha? Haddii aad rabto inaad ogaato waxaad rabto nolosha, weydii su'aalahan naftaada: ma ku faraxsan tahay noloshaada? Haddii aanad ku faraxsanayn, waa maxay sababaha aanad ugu faraxsanayn? Miyay tahay noloshu aad hadda ku nooshahay noloshii badanaa aad jeclayd inaad ku noolaato? Maxaad rabtaa inaad ku guulaysato nolosha? Waa maxay waxa aad neceb tahay iminka nolosha oo aad u jeclaan la'dahay inaad beddesho? Ma jiraan wax aad si xun ugu baahan tahay? Markaad ka jawaabto su'aalahan, waxaa kuu soo bixi doona liis ah waxaad dhab ahaan u rabto iyo waxyaabaha aad doonayso inaad ka fogaato ee aanadan rabin. Isticmaal labada liis ee kuu soo baxaba si aad u samayso hadafyo kaa caawinaya inaad gaadho waxaad rabto nolosha iyo waxa aad doonayso inaad ka fogaato. Tusaale ahaan, haddii aad ogaato inay ku haysato dhib ah dhaqaale xumo iyo lacag la'aan, sidoo kalena aad rabto inaad caan noqoto, waxaad heshay 2 hadaf oo aad gaadho noloshaada. Waa midda koowaade, waxaad go'aansatay inaad ka fogaato faqriga oo aad noqoto taajir. Ka labaadna waa inaad caan noqoto. Qof kasta oo adduunka ku nool waxa uu leeyahay baahiyo aanu gaarin weli. Dadka qaar ayaa raba in ay ku noolaadaan nolol fiican, qaar ayaa raba in ay caan noqdaan, halka qaar kalena ay rabaan inay taajir noqdaan. Inaad ogaato hadafyadaada iyo waxaad rabto noloshu waa mid aad u fudud marka aad ogaato waxa aanadan rabin nolosha ee jeclaan lahayd inaad beddesho. Haddii ay kuga adag tahay inaad noloshaada iyo biilkaaga dabarto, waxaa hubaal ah inaad rabto inaad lacag badan hesho oo aad taajir noqoto. Haddii aad neceb tahay xaqiiqada ah inaad tahay qof xishood badan, waxaad rabtaa waxay tahay inaad kalsoonida dhisto. Haddii aad tahay qof badanaa stress iyo warwar badanna, waxaad dhab ah inaad rabto inaad ku noolaato nolol bilaa stress ah. Daawade, dhab ahaan ma u doonaysaa inaad ogaato waxa aad rabto nolosha? Mararka qaar dad badan ayaa yiraahda in aysan garanaynin waxa ay dhab ahaan u rabaan nolosha, xagga xaqiiqadu ay tahay inay qiyaamaynayaan nafahooga. Tusaalayaashan soo socda waxay ku tusi doonaan dadka sheegta in ay garanayn waxa ay rabaan nolosha iyagoo ku salaynaya sababo kale. 1. Cabasho. Qofka ka cabsanaya in uu horay u qaado tallaabo horumar ah noloshiisa wuxuu la yimaaday cudurdaaro ah in uusan garanaynin waxa uu rabo nolosha, halka xaqiiqadu ay tahay in uu isku dayayo in uu qariyo xaqiiqada ah in uu cabsanayo. 2. Caajis iyo kontarool la'aan. Waxaa jira dad badan oo sheegta inaynan garanayn waxa ay rabaan nolosha, halka xaqiiqadu ay tahay inay 100% ka warhayaan waxyaabaha ay ku farxi lahaayeen haddii ay heli lahaayeen noloshooda. Xataa dadkaas waxa ay bilaabaan in ay ku dhaqaaqaan ka dhabaynta hadafyadooda iyo waxa ay rabaan nolosha, balse markay toddobaadyo wadaan ayay joojiyaan iyadoo ugu wacan tahay caajis, nidaam la'aan iyo naftoodaynan kontarooli karin. 3. Kalsooni la'aan. Dad badan ayaa sheegta cudurdaaro badan iyagoo leh ma naqaano waxaan nolosha qabanayno, si ay u qariyaan xaqiiqada ah in ay ka baqayaan in ay tijaabiyaan awoodahooda, isla markaana aan ku kalsoonayn naftooda. Daawade, iminka waad ogaatay ayaan isleeyahay waxaad rabto nolosha. Kuma lihi inay noloshu tahay mid fudud oo aad wax kasta ku heli karto bil iyo 2 bilood gudahooda, balse waxaan hubaa ayaa waxa ay tahay haddii aad si adag oo geesinimo leh ugu dagaalanto waxa aad rabto nolosha, inaad ugu dambayntii ku guulaysan doonto. Haddii aad dhab ahaan u doonayso inaad hesho waxa aad rabto noloshu, u dagaalan.